بسم الله الرحمن الرحيم وايدين سلامي دمانتينا أصحابتا داونيسا برنامجكان haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu idmo caawa waxaan isku dayi doonaa inaan bilaabo course afmaymay ah oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karaan wax badan ka baran karaan sababaha igu dhaliyay in duubo ama barnaamijkan aan sameeyo waxa kamid ah dad badan oo asxaabnahay ayaa i weydiiyo saaxib marar gaar qoraal afmaymay aad qortaa dad badan ayaa maxaan ku yiraahdaa rabo inay fahmaan inaan bartaan jeclaan lahayn طبعا يعني resources كأما وحيابه أما بوقتي أما فيديودي برنامج كاللغة اللغة برن لهانا ويريهن رنتي سيداس درتي توحان كوكس بنادي أما عن إسبهي ويوناكسنتها إن برنامج كان كورس دان آت ساميسو آد ندوبتو سيدات بدنو وباهن أي أوجرت وجنا فايدستان وحيابها أي فايدوينك أي لاذا هاي وحكمدا إن ورشة إسدح قلب الشديد إن ليش فهمه in sidoo kale eray badan oo yani ama fan badan oo ku keedsan luqad af Soomaaliga gaar ahaan qaybteeda maayga ku keedsan ay bulshada Soomaaliyeed ay gaarto ayna ka faa'iideystaan marka insha Allah waxaan isku dayi doonaa in sida ugu macquulsan loo fahmi karo tabarteedan ay tahay aan u duubo barnaamijkaas dad badan ay uga faa'iideystaan af Soomaaliga ama maayga wax badan wuu ka duwan yahay wax badanna wuu la siman yahay ama wuu la eg yahay af maxaatiriga ama qaybta la rasmiyay ee af Soomaaliga aad ayuu uga dhow yahay maxaa keenay marka isbedelka halahan la eg ilaa qof uu fahmi waayo yani af maaymaaygi uu fahmi waayo ama qof Hargeysa ka soo jeedo ama goboladaas bari ka soo jeedo uu fahmi waayo qofka af maaymaayga ku hadlo ama sidoo kale qof ka soo jeedo tuulooyinka meelaha looga hadlo gobolada looga hadlo maayga uu fahmi waayo maxaatiriga caadiga ah uu fahmi waayo maxaa keenay sababaha ugu waaweyn waxa kamid ah af maaymaayga dhawaaqiisa ayaa ka duwan af Soomaaliga kale eray badan oo dhawaaqiisa u gaar ah ayuu leeyahay sidoo kale eray badan oo af maxaatiriga caadiga ama qaybta la rasmiyay ay leedahay ayaanan ku jirin af Soomaaligan ama af maaymaaygan aan ku jirin sidaas darteed yani eray badan oo boqolkiiba 70 iyadoo laga siman yahay ba haddana waxaad arkaysaa in erayga dhawaaqiisa oo kugu cusub darteeda aad fahmi weyso marka insha Allah coursedan ayaad uga bogan doontaan waxyaabaha laga siman yahay waxyaabaha lagu kala duwan yahay ayaa halkan aan ku sheegi doona insha Allah dadka rajaynayo inay bartaan oo si sahlan u bartaan waxaan ugu yeerayaa inay qayb ka noqdaan oo ay ka faa'iideystaan waxyaabihii su'aal ah ama soo jeedin ah ama taageero ah dhamaantood waan soo dhaweynayaa emailada hoose ama halkan ayaad igula xiriiri kartaan aad u mahadsantihiin ku soo dhawaada coursedeeni si sahlan u baro afmaay bismillahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada marka barashada ama koorsada barashada afmaay si sahlan u baro lahjada afmaayga ee af Soomaaliga درسينا كواد أيان قاعديننا عاوة هدي الله سبحانه وتعالى وإدمه درسينا كواد وحكو سابسين هاي ألف بيتا ألف ماي أيوكو سابسين هاي حرفها وككوبين هاي ألف ماي أيا وحو إنوي هاي ثيم كواد أما مهمة كواد أيان كوبرندونه درسيان أي إنوتا هاي marka sababaha aan halka ama koorshadan aan u dhigayno waxa kamid ah koow inaan kordhino isdhaxgalka bulshada uu kordho dad badan ay bartaan sidaas darteedan ay halka ka dhalato isdhaxgal bulsho oo balaaran in la ogaado waxyaabaha laga siman yahay iyo waxyaabaha lagu kala duwan yahay sababaha keenay kala duwanaanshahaasna sidoo kaleeto halka lagu fahmo haday afka tahay ama ereyinka la isticmaalo ay tahay haday dhaqanka tahayba halka in lagu barto ayaan rajaynayaa insha Allah marka aan u imaano alifbeetada afmaayga uu leeyahay halkan waxay noo qoran shibile ama shibane shibile ama shibane waa isku mid xarfaha ka kooban yahay ama alifbeetada ay leedahay af Soomaaliga ereyada inta badan waa laga siman yahay boqolkiiba 70 ku dhawaad waa laga siman yahay waa batajadi caadiga ahayd oo af Soomaaliga rasmiga la rasmiyay uu lahaa kaliya ayuu maaygan uu leeyahay balse waxa u dheer xuruuf yani dhawaaqoodi aanan ku jirin af maxaatiriga aanan ku jirin ayuu xambaarsan yahay alif maayga ama af maayga ayuu xambaarsan yahay taas oo sabab u ah in kala duwanaanshaha dhawaaqa ay ereydu ay leeyihiin lagu kala duwanaado taas ayaa ugu balaaran xarfadahaas waxa kamid ah pa ayaa kamid ah يعني afmaayga wuxuu leeyahay ereyga p
ayuu leeyahay oo englishka sida uu u lahaa oo kale ayuu afmaaymaaygan uu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay xarafka la yiraahdo ya ayuu leeyahay xarafka la yiraahdo ya ayuu leeyahay aan dhawaaq rasmi aanan ku lahayn af Soomaaliga kale aanan dhawaaq rasmi ah ku lahayn waxa kale sidoo kale uu leeyahay dadka afmaaymaayga qore ay ku soo dareen ereygaas da ereyga da af Soomaaliga caadiga ah labadaba waxa loo isticmaalaa da ayaa loo isticmaalaa da ahaan loo isticmaalaa da ahaan loo isticmaalaa dadka sida luqawiinta ah ama luqadda bartay ay sheegeen sidoo kale wuxuu leeyahay afmaaymaayga gaar la ah lagu qoray lagu daray ereygan ga ama ga iyo ha oo isla socdaan afka carabiga ku ah qayn ku ah ayaa lagu soo daray sababo jiro awgooda sidoo kale na iyo ga ayaa halkaan aan ugu jeednaa oo aanan ku jirin af Soomaaliga caadiga ah batajadiisa aanan ku jirin ayaa halkaan ugu jeednaa na iyo ga aad ayaa loo isticmaalaa wayna ku badan yihiin afkaan maayga aad ay ugu badan yihiin inta badanna waxay ku imaadaan iyadoo a ka hormarayso ama iyadoo i ka hormarayso sidaasna ay ku noqdaan an ama in ay ku noqdaan labadaas xaal ayaa ugu badan oo inta badan ay ku imaataa aad loo isticmaala waa arki doonaa tusaalooyinkiisa waxa kale afmaayga dheeri ku ah shagal u yaali ama shagal anyaal wax la yiraahdo shagal anyaal shagal ma ahan balse shagal ay u taalaa waxaan waa way oo waydi caadiga ah ma yaadi caadiga ahayd ay la mid tahay balse inta badan waxa ka hormaro xaraf ayaa ka hormaro oo shagal inta badan kama hormaro hadii xaraf ka hormaro yaadi caadiga ah ay noqonaysaa shagal hadii ka hormaro yaadi caadiga ay noqonaysaa balse hadii xaraf uu ka hormaro waxay noqonaysaa iyadoo loo isticmaalayo shagal ahaan waxaana la yiraahdaa shagal anyaal ama shagal u yaale halka shagalka shagal afmaaymaay ahaan waxa lagu dhahaa shagal waa yani qaynka hadda aan soo sheegaynay hadda halka lagu isticmaalaya shagal yaadi oo shagal u yaalka ahayn halkan ay ku jirtaa oo u jeedna shagal meeshan ina ma ahan shagil lama dhihi karo sidaas darteed waxa waa wax shagal oo kale ah laakiin shagal rasmi aan ahayn ayaa ku jiro sidaas darteed waxa la leeyahay shagal ayaa la dhahayaa halka af Soomaaliga caadiga shaqal uu dhahay shagalka marka waa laga siman yahay shagal dheer iyo shagal gaab labadoodaba waxa waa afmaaymaaygan uu leeyahay af Soomaaliga maxaatiirtiisa maxaatiriga ahna sidoo kale isla kuwii ayaa la isticmaalaya waxyaabo badan oo lagu kala duwan yahay malahan halka waa laga siman yahay aan hore u socono weerdhinta xarfo maay gaar leey weerdhinta xarfo maay gaar leey dhawaaqa xarfaha maayga gaarka leeyahay halkan waxaan ku baranaynaa dhawaaqooda iyo tusaalooyinkooda ayaan ka baranaynaa waa isla kuwii aan soo aragnay waxa way p ayaa uu gaar leeyahay oo kamid aha maayga waxyaabaha gaarka leeyahay ay kamid ahayd p tusaalaheedu waxa waa libe oo kale libe ayaa kamid ah waxa kale to kamid ah habiibe inta badan gabdhaha magacay loo bixiyo ay kamid tahay habiibe ayaa la dhahaa habiibe markaa qoraysid waxa way waxaad ka bilaabaysaa ta ayay noqonaysaa habiibe ta ayaa jirto da ayaan soo sheegnay ja iyo ha la isku daray waaye inta badan dhawaaqeeda way ku aad ay u jirtaa dhiran baa kamid ah dhiran waxa lagu wadaa firirka ama jaaha meel galay yani koobka dhiranga galay koobka waxa galay firir ayaa galay dhiran baa la yiraahdaa jaah da ayaa jirto waa soo sheegnay da marka waxa la inta badan marka xarafka daal caadi aha la fududeynayo ayaa waxa loo isticmaalaa da ayaa la isticmaalaya waxa kamid ah dedaal ayaa kamid ah dedaal ayaa kamid ah waxa kale oo kamid ah madaxa caadiga ah mada baa kamid ah waxa kale oo kamid ah iyadoo magac loo isticmaalay arkaysa iidin aadan magaciisu way iidin ayaa la isticmaalaa sidoo kale iidin ayaa la dhihi karaa iidin marka xarafkaas da isticmaalkiisa asigana waa sidaas waxaan soo sheegnay sidoo kale ya oo u dhiganta shagal anyaal ama shagal u dhiganta balse ila aan shagal ahayn inta badan waxaan dhahnay xaraf ayaa ka hormaro oo shagal kama hormaro ayaa jirto waxa kamid ah tiise duqsiga ama taxsiga tiise ayaa kamid ah
madigii hadda aan soo qoraynay baa iyadana sidoo kale ay dhamaadkiisa waxaa ku jirtay xarafkaas waa iyada ah oo shagal u taalay ama shagalanyaala ahayd ayaa ku jirtay inta badan sida aad u jeedin waxa ka horeeyo oo ka hormarayo xaraf ayaa ka horeeyo oo shagal kama horeeyo sidaas ayaa loo isticmaalayaa shagalada maayga uu gaarka leeyahay waana kuwaan pa iyo da iyo da iyo na iyo ga oo isla socdaan iyo ya na iyo ga isla socdaan waxaan dhahnay irin oo kale irin yani irin maahan iyo nu uma dambeyso waxa u dambeyso ga khafiif ayaa ku jirto meeshaas marka waxa la yiri ing englishka ku jirto oo kale irin ayaa la yiri irin ari waaye marka tusaalooyinkaas oo badan ayaa ereyada inoo soo socdaan haddii ilaahay uu idno inoogu imaan doono aan hore u sii socono halkan waxaan ku baran doonaa xarfo maayinka jarna xarfo waxaa jiro oo afmaaymaayga aan lahayn balse keliya gaar la ah afmaxaatiriga qaybta afmaxaatiriga keliya ku jirto waxaana ka mid ah xa ayaa ka mid ah xa inta badan afmaay kuma jirto a sidoo kale kuma jirto kha sidoo kale kuma jirto saddexdaas iyagoo qaab kale leh ayaa la isticmaalaa xa inta badan waxaa loo isticmaalaa booskeeda ha ayaa isticmaalaysaa sidaas darteed baa dad badan oo maay ka soo jeedo ama maayga lugadooda hooyo ay tahay balse bartay afmaxaatiriga bartay baa meelihii xa laga rabay waxay arkaysaa iyagoo u isticmaalayo ha maxaatiri oo kale maxaatiri buu ku leeyahay balse waxaa la rabay inuu isticmaalo ha uu dhaho marka han haataw hormadheegna oo kale arkaysaa han haataw hormadheegna waxaan oo kale hore ma maqlin hormadheegna ayaa arkaysaa inta badan harafka cayn waxaa loo isticmaalaa a ayaa booskeeda gelgelsha haddii ay marar qaarna waa la tuuri karaa tusaalahaan cali oo kale adaa tuuraysa waxaa leedahay cali ceesana oo sidoo kale halkan ku taalo ceesan waa eesanka caadiga ah acda ayaa tuuraysaa waxaa ka dhigaysaa eesan macnaha afmaamaaga wuxuu ka yahay orgi ayuu ka yahay orgi ayuu ka noqonayaa kha aan u imaano harafka kha sidoo kale afmaamaaga kuma jirto waxaan inta badan bedelkeeda loo isticmaalaa ka ayaa la isticmaalaya tusaale ahaan kheer ayaa halkan inoo qoran keer ayaan leenahay maalinta khamiista ah oo kale ayaa rabtaa qofka inaad dhahdo khamiis geeka jeermaaw geek jeermaaw geek jeermaaw maanta waa ayaante geek khamiisu saasuu ku leeyahay geeka khamiisu marka meelihii kha'ad aa ku aragto inta badan waxaad u isticmaalaysaa xarafka ka ayaad isticmaali kartaa kheer oo kale keer ayuu ku dhahay khamiis oo kale waa sheegnay khiyaano oo kale rabtaa kiyaanuu ku leeyahay kiyaan inkiyantoy ha khiyaaninuu rabaa inuu ku dhaho markaas wuu ku leeyahay inkiyantoy inkiyantoy saas ayuu isticmaalayaa marka asharadeena maanta halkaas ayaan kusoo koobaynaa darsigeena koowaad waxaan qaadanay alifbeetigiisa ayaan qaadanay maayga alifbeetigiisa xuruufaha laga siman yahay ayaan qaadanay kuwaan ahaa sidoo kale waxaan qaadanay xuruufihii lagu kala duwanaa ee aan ku jirin maayga ayaan qaadanay marka insha Allah waxa inoo xigi doono darsigeena labaad sidaas iyo nabadgelyo wixii dheeri ah su'aalo iyo tusaalooyin ah waxaad inoogu dhaafi kartiin ayagoo qoraal ah qaybta commentiga ayaa inoogu qori kartiin ama email ahaan ayaad inoogu soo diri kartiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh